cabdi xasan cawaale qaybdiid waa rugcadaa aqoon leh wixii qaldame og waana mas'uul xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii soo maray Soomaaliya oo waxqabad iyo waxtar lagu yaqaano waana waayo arag hal abuur badan hawshiisuna halbeeg iyo higsi qaran leedahay General Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid waxa koodii bishii May sanadkii 2012 uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee dawlad goboleedka Galmudug kadib shir jiraa'id uu ku qabtay magaalada Gaalkacyo maadaama muddadii xukuumadda teeramkeedii dawlad goboleedka Galmudug uu soo dhow yahay oo ay ka hareen muddo gaaban oo bila ah waxaan maanta dadka iskugu yeeray bulshada iyo dadka ka soo qayb galay madaxda qaybaha bulshada waxaana u sheegay inaan murashax u ahay hadii aan ka mid ahay murashaxiinta isku soo taagaysa tartanka dawlad goboleedka Galmudug markii la gaaro ku dhawaaqista musharaxnimada Cabdi Qaybdiid waxa si isku mid ah u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada oo u arkay Cabdi Qaybdiid inuu yahay rugcadaa aqoon iyo dareen wadaniyeed leh isbedel muuqdana ku sameyn kara siyaasadda dhaqaalaha iyo horumarka dawlad goboleedka Galmudug 1 Agoosto sanadkii 2012 waxa magaalada Gaalkacyo ka dhacay doorashadii madaxtinimo ee maamulka Galmudug taasi oo ay isu sharaxeen ilaa iyo 7 musharax oo ku jira General Qaybdiid laakiin 5 ka mid ah musharaxiinta ayaa u tanaasulay rabitaanka shacabka oo si aad u taageersana General Cabdi Qaybdiid laakiin waxa tanaasuli waayay madaxweyne ku xigeenkii maamulkii Maxamed Axmed Caalin doorashada baarlamaanka Galmudug ay sameeyeen ayaa waxa isugu soo haray General Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo ku xigeenkii Maxamed Axmed Caalin hasaatee baarlamaanka Galmudug ayaa cod aqlabiyad leh madaxweynaha Galmudug ugu doortay General Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid 20 xildhibaan ee codeysay hal xildhibaan warqadiisa waa qasaartay meesha loogu talagalay meel aan ahayn ayay la abaaray 21 xildhibaan kale siday ahayd sharcigu ahaa ayay waafaqeen qof walba wuxuu ku qoray ama uu ku muujiyey dareenkiisa iyo ciduu rabo inay hogaamiso meesha loogu talagalay waxay musharax tira ahaan kala qaateen ama kala heleen gudoomiyaha maxkamadda sare saa hore kuu sheegay 22 tiradii ahayd ee xildhibaanada حال حلبان ناير ساعتي ورقديسو 21 كلا عوديين waxaa loo kala codeeyay Cabdi Xasan Cawaale 20 xildhibaan baa u codeysay Cabdi Samad Nuur Guuleedna hal xildhibaan ayaa u codeeyay xaweeye abu kuma dhawaaqi karaati waa ku dhawaaqday oo waxaa tiri waa 20 hal Soomaaliyeed waxaa weeye in qof waliba dhagihiisu ku maqlaya horta waxaan leeyahay warqadaha kan sida loogu wateeyay waa si aniga caqligayga xataa ka weyn qof waliba qofku doonay ayuu xariiqay xukunkuna sidaasuu u dhacay Cabdi Xasan Cawaale ayaa siyaasadii labadii ilaa iyo 5 Agoosto sanadkii 2012 waxaa banaanbaxyo ballaaran oo lagu taageerayo doorashada madaxweyne Qaybdiid ay gilgileen guud ahaan deegaanada Galmudug
14 Agoosto sanadkii 2012 waxaa madaxweyne Qaybdiid loo dhaariyay qabashada xilka madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Galmudug. waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan diinta islaamka xurmeeyo shareecada islaamka axdiga Galmudug iyo xeerarka kale ee la xiriira dhowro xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto dalka iyo dalkiisana lilaahi ugu adeego 16 Agoosto sanadkii 2012 waxaa madaxweyne Qaybdiid markii ugu horeysay uu magacaabay 5 wasiir oo ka mid noqonaya dawladdiisa waxaana madaxweyne Qaybdiid 17 Agoosto baarlamaanka Galmudug ay ka ogolaadeen magacaabista wasiirada uu magacaabay 22 Agoosto sanadkii 2012 waxaa markii ugu horeysay madaxweyne Qaybdiid iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo kormeer ay ku tageen deegaano iyo degmooyin madaxweynayaashii madaxweyne Cabdi Qaybdiid ka horeeyay aanu tagin madaxweyne Cabdi Qaybdiid ayaa kormeerkiisu waxa uu qaatay muddo 7 maalmood ah waxa uu ahaa mid uu ku indheynayay xaaladda guud ee deegaanada Galmudug waxaana si rasmi ah uu u bilowday kormeerkaasi maalin Isniin oo ay taariikhdu ku beegnayd 22 bisha Agoosto sanadkii 2012 waxaana sida aad daawanaysaan madaxweyne Cabdi Qaybdiid kormeerkiisu uu ka bilaabay Well,